qisada ehelkii sabtida waxay ka mid tahay qisooyinkii ugu cabsida badan ee quraanka ku xusan. waa sheekadii yahuudda alla u bedelay daanyeero sabab la xiriira ku xadgudubka amarka alle. intaan u gudagelin qisadan, muuqaalka like saar oo nagu soo biir. asxaabu sabti waxay ahaayeen koox ka tirsan yahuudda. alla wuxuu reerkaasi ku amray in maalinta sabtida ay nastaan oo aysan shaqayn, ayna u gacan bannaanaadaan cibaadada. dadkaasi waxay ka shaqayn jireen kalluumaysiga, waxaana loo diiday in maalinta sabtida ay kalluumaystaan si uu alla u imtixaano iimaankooda oo uu u kala saaro kuwa rumeeya iyo kuwa caasiya. kalluunkii ayaa soo tirabatay maalintii sabtida, taasi oo ahayd maalintii laga mamnuucay in ay shaqo sameeyaan. weliba kalluunkii waxa uu bilaabay inuu xeebta afkeeda hore socsocdo, xitaa soo qabashadiisu aysan u baahnayn howl adag. arrintaasi dadkii lagu imtixaanay way u dulqaadan waayeen. wakhtigaas dadkii tuulada waxay u kala qaybsameen 3 kooxood. koox amarkii alla jebisay oo bilowday inay si xeeladaysan u kalluumaystaan, koox amarkii alla aan jabin dadkiina oga digay carrada arrintan ka dhalan karta, waxayna ka hor imaadeen falka xun iyagoo dadkii amray wanaaga oo ka reebay xumaanta. kooxda saddexaadse way aamusnaayeen iyagoo amarka alla aan jebin, laakiin dadkii xumaanta ku daawaday kana celinin kuwii amarka alla jebiyey. dadkii waxay ku qiyaameen amarka alle iyagoo kalluunkii dabin u dhigin jiray maalintii jimcaha, kadib kalluunkii maalinkii sabtigu ku soo dhacay ayay la soo bixi jireen maalintii axadda. sidaas ayay ku fasireen in ay si toosa u kalluumaysan maalintii sabtida, laakiin xaqiiqdu waxay ahayd inay qiyaameen sharciga alle. sidaas ayayna kalluunkii ku keeni jireen suuqa kuna iibkeen jireen. markii kuwii amarka alla jebiyey ay ku adkaysteen in ay alla ku caasiyaan oo ay xeeladooda khaldaneed iska sii wataan, ayaa alle ciqaabtiisa ku soo dejiyey. habeen ayay seexdeen ayagoo insi ah, subaxiina waxay soo tooseen ayagoo daanyeero ah. ugu dambayntii alla wuu iqaabay reerkii koowaad ee amarka alla jebiyey, isagoo daanyeero u bedelay, taasi oo ka mid ah ciqaabtii ugu weyneed ee dad lagu sameeyo. qisadana waxay ku qoran tahay dhowr suuradood oo ka mid ah qur-aanka, sida suuradda albaqara, annisaa iyo suuradda acraaf, halkaasi oo si buuxda loogu faahfaahiyey. darsiga ugu weyn ee laga qaadan karo qisadan ayaa ah digniin ka dhan ah khiyaanada iyo ku xadgudubka amarka alle, iyo sida aan loogu tagi karin in wax laga qabto xumaanta lagu arko bulshada dhexdeeda. qisadeeni halkaas ayay ku soo dhammaatay. haddaad qisadan wax uun ka faa'iiday, muuqaalka like saar oo nagu soo biir. mahadsanid.